madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa si rasmi ah u shaaciyey haddii la gaadho 15 mey waxa iyagu ay samayn lahaayeen islamarkaana tallaabooyinka nooci ay qaadi doonaan haddii dowladda federaalk soomaaliya oo hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay tanaasuli waayaan. saciid cabdulaahi deni ayaa si rasmi ah uga hadlay meel fagaara ah isagoona shaaciyey in 15 mey wixii ka dambeeya aanu dalka ka jiri doonin dowlad la yidhaahdo federaalka, uuna shaaciyey in dalka iyagoo ka puntland ahaan ay ka tashan doonaan, isagoona sheegay in puntland markii horeba aayaheeda ay ka tashan jirtay haddana hore ay u sii socon doonto. wuxuuna fariin kulul u diray madaxda soomaaliya ugu horeeya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud, isagoona sheegay in haddii 15 mey la dhaafo amaba la gaadhoba haddii dalkan dowladda ay ka jiri weyso, uu sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin ay ka mid tahay in puntland aayaheeda ay ka tashan doonto. siyaabo kala duwan ayaa loo fasiray iyadoo dadka badina ay u fasireen in puntland ay doonayso inay ku dhawaaqdo madax bannaani maadaama dastuurka puntland uu ku yaalo dalka puntland inay tahay laakiin aysan ahayn maamul goboleedka puntland. xaalad siyaasadeed ayaa ka kacsan islamarkaana gudaha dalka ee soomaaliya, iyadoona si aad u xun yahay xiriirka u dhexeeya villa soomaaliya iyo puntland. madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni si la mid ahba wuxuu carabkiisa ku xusay islamarkaana ku adkeeyey in iyagu marnaba aanu u joojin doonin siyaasi leh dano gaar ah taa ay la micno tahay xitaa mucaaradka haddii ay isku dayaan inay la hadlaan puntland inaysan ka tanaasuli doonin arrinka 15 mey wixii ka dambeeyana reer puntland ay ka tashan doonaan aayahooda mustaqbalka ee dowladnimo.